cunto karin wanaagu waa mid ay hiddo iyo dhaxal u leeyihiin hablaha Soomaalida kaasoo ay ka dhaxleen hooyooyinkood waxaana loogu maamaayi jiray hablaha hore ee Soomaalida inanta hooyadeed hadhuurka tuntaa iyana haadiskii hufniinkay barataa taas oo macnaheedu tahay in inanta cunto karinta ka dhaxasho hooyadeed sidaas oo ay haddana hablahaasi ma yahayn kuwa curin kara ama samayn kara qaar ka mid ah waxyaabaha ay dheriga ku xawaasheeyaan sabab jira awgood sababahaas oo ay ka mid ahaayeen suurtagal la'aanta halista waxyaabaha laga samaynayo xawaashka Jamila waa haweeney dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Burco waxayna qacanteeda ku samaysay xawaashka lagu daro raashinka haweeneydan dhalinyarada ah ayaa goobjoog uga warantay waxa ku kalifay samaynta xawaashka iyo sidoo kale waxyaabaha uu ka kooban yahay sidaynu wada ognahayba laguma sameeyo Somaliland xawaashkaare waxay nooga imaadaa wadamada kala duwan sida waliba Hindiya ay xoog isticmaalaan kaasoo waliba maxay ahayd toolayde aan aad ii cajabinin markaan dheriga ku darnaan udug badan lahayn anigoo kaliyaba ma oranayo udug ma leh laakiin bulshada dhan way ogtay laakiin haddana waa wax dantii ku kaliftay bulshadii aniga waxa igu kalifay waxa dalka la keenayo aan udug lahayn maxay talaaniga aanu yaan fiicin barso markuu warsaniga gurigayga ku samaystay xawaashkaariga anigoo runtii aad u jeclay inuu dherigaygu aad u udgoonaado markaan anigu samaystay waxaan jeclaystay inaan la wadaago maxay tahay bulshada inta kale waxa kamid ah maxay tolay barbarooni kaarote waxa kaloo kamid ah maxay tolay toon iyo kamsare geedaadari waxyaabo badan sinjibiil dhir badan buu ka kooban yahay tan dhir buu ka kooban yahay walba markuu wax qabanayo qof caqabad ba ka hortimaada laakiin aniga fikirkaygan ma naarag maxay tolay cid ka cabanaysa iyo cid igu qasaysiisa toona laakiin caqabado kale ayaan kala kulmay sidoo kale sameyntiisa mashiinkii aan ku sameeyay ku shiiday xawaashka kaasoo markaan sameynayo maalinta saddex xawaash sameeyba ugu yaraan hal mashiin ama laba mashiin inay iga gubtaan caqabadahaas aan la kulmay iyo aniga oo dadkii markii aan baalkan iri wan iibinaya aan doonay inaan maxay tolay anigu iibiyo aan cidna meeshayda iigu iimaaneen taasoo iyaduna caqabad weyn igu noqotay inaan maharadii idhaahdo waxaan sida xawaashkaare runtii oo xishood ayay galay caqabadaan inta ahayn kalamaan kulmin alxamdulillah dadkayga aad bay soo dhaweeyeen saaka la khayr baan leeyahay nasteexa kamida kaafi baa kamida deera kamida hoteelada waa inay Burco iyo kuwa yaryar qaar kamida Jamila ayaa xawaashkan iyadu qacanteeda ku farsamaysay ka iibisa qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Burco iyo sidoo kale hudheelada weyn ee gobolka nasteexa hotel waxa uu kamid yahay hoteelada ay xawaashkan ka iibsay Jamila mid kamid ah wadannada hoteelkaasi ayaa ka waramaya sida uu anfaa xawaashkan haddaan ku sheego xawaashkan waxa aad iyo aad u aan xawaash tayale iyadiisu aad u sareyso maadaama ay dalkeena Somaliland ku noolahay xawaashkan waxa lagu sameeyay dalka xawaashadu waxay nooga jiray bariga hore meelo fog oo dhibaato ku jirto dadweyntay soo mari jireen India Washington iyo wadamada marka dalkeena lagu sameeyay marka xawaash aad iyo aad u tayale wanaagsan tiyadiisuna aad u sareyso marka dadweynaha waxaan ugu sheegaynaa inay wuxuu iibsadaan wuxuu dalka ka soo baxaya kor u qaadaan oo sumcaddooda balaariyaan xawaashkan aad iyo aad buu cayay shirkadda intuu sameysay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa miladeedu aad bay u sareysaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa xawaashkan tayuu leeyahay 7 nooc buu ka kooban yahay Xasan Xamdulle goobjoog Burco